cabdirashiid waa salaama waxaan kaloo aad u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay iga dhageysanayaan atooshow waxa aan ku saleynay iyo sida ay tahay wax ma aha aan daqiiqado yar oo BBC-da aan ku jirno aan uga hadli karno waa wax soo bilowday ilaa maalintii nala aasaasay ilaa maantadan aan joogno ama maalintii aan baarlamaanka tegay waa shaqo silsilad ah oo isdaba haysay oo isku daba xirneed doorashana markii la fulinayo waxay leedahay xukumo lagu fuliyay leedahay xukunka ugu weyn oo lagu fuliyana waa sharciga doorashooyinka waxaan ku saleynay sharciga doorashooyinka oo naga soo daahay iyo markaan helno asaga laga bilaabo July in aan doorashada sidaas u qaban karno waa soo bandhignay buugaagii aan soo bandhignay ku taalay waxay ku jirtaa website-keena maalintii waa la aqriyay baarlamaanka waa loo aqriyay oo presentation fiican ah loo sameeyay habka loo qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo waqtiyada la qabanayo iyo qarashka la qabanayo iyo meelaha in laga qabto ay tahay arrimahaas oo dhan waa cadaynay waxaan kaloo soo cadaynay mid kasta waqtiga uu qaadanayo shaqadu ma aha shaqo maalintaas aan baarlamaanka soo istaagnay waa shaqo bilaabatay maalintii naloo magacaabay oo naloo doortay inaan guddiga doorashada noqono oo kasoo bilaabanayso diyaarinta guddiga waxaa jira wax universal oo la dhaho wareegtada doorashada say u wareeganayso doorashada waxay ka bilaabanaysaa muxuu ahaa marka ugu horeysa in guddigii la dhiso guddigii in la tababaro in la gaarsiiyo heer ay hawshooda gudan karaan waxay kaloo ku salaysan tahay in muxuu lasoo saaro shuruucda lagu shaqeynayo waxay ku salaysan tahay in dadka la wacyigeliyo oo wacyigelintaasoo dhowr nooc ah marka dadka doorashada loo micneynayo marka ay doorashada galayaan marka diiwaangelinta loo sameynayo iyo waxay doorashada tahay iyo adduunka waxay ka tahay waxaa kaloo aada u weynad ayadana tababarida guddiga sidaan soo sheegay oo waxbarasho gudaha ah oo practic ah oo shaqadii ay ku kor baranayaan iyo barasho ay u aadeen adduun weynaha oy soo arkeen meelo tiro badan oo adduunka ka mida oo kala duwan ama dowladaha horumaray ha noqdaan ama kuwa ka daba dhow ha noqdaan ama kuwa dagaalada kusoo dayacmay ha noqdaan oo kasoo kabanayo ama kuwa muddo yar isqabsaday ha ahaadaan oo haddana ka heshiiyo doorashadii ku heshiiyey arrimahaas oo dhan ay soo baranayeen wacyigelinta markay dhammaatana waxaa ku xiga tababaridda muxuu ahaay sidii loo aruurin lahaa ama loo tababari lahaa ama loo wacyigelin lahaa diiwaangelinta dadka diiwaangelinta waxaa ka horeysa dadaal badan oo qalabka lagu diiwaangelinayo nooca loo diiwaangelinayo in daraasad lagu sameeyo noocyada kala duwan ee doorasho loo diiwaangeliyo waxaan soo sameynay cilmi baarisaan soo sameynay daraasadaan kasoo sameynay dowlad goboleedyada iyo degmooyinka iyo madaxda halka xamar joogta iyo xisbiyada dowladda federaalka ah ciidamada meel kastoon tagno daraasadaas kasoo sameynana waxaa noo soo baxday in nooca biometriga uu ugu habboon yahay sababtuna waxay tahay Soomaaliya waa ogeydeenoo dagaalaa ka dhacay dadku waa isqoonsadeen dadku waa waxaa ka kala tegay muxuu ahaa is-aaminaadii inkastoo muddo 20 sano aad la iskugu soo dhawaanayay oo dowlad la dhisanayo oo wax la qaybsanayo oo runtii maanta dadka Soomaalida ay walaalo yihiin oo ay ii suurageli karto intaan Kismaayo kasoo tago aan tago Boosaaso aan tago meeshaan tagana walaal iyo saaxiib aan ugu tagaayo iyadoo ay saas ay jirto haddana waxaan jirin inaan la is-aaminayn halka qabiil halka laf aan is-aaminayno oo aragtay 2016 xildhibaanada sida la iskugu dilayo oo laf kasta ay u lahayd anaale iyo kuwaas ma laha kan anaa badan iyo kaasa iga badan Halima waa si fiican aad u faaqiday waxaan rabaa inaad laba qodob una xasuusiyo nooca biometriga oo aad tiraahdeen meeqa bilood iyo nooca kale ee manualka ee waraaqaha ah labada noo sheegdeedna waan si ambaqaadeena martida kale aan rabaa inaan qaybahooda siiyo waxaan ku leeyahay nooca biometriga wax badan aan nooga diyaarsan haday doorashada loo aadana waxay nagu qaadanaysaa wax ka yar 9 bilood dadku waxay leeyihiin 13 bilood waxaa laga boodaa dowladda hadda jirto waqtiga u harsan in laga boodo ma aha laakiin annaka waxaan isku darna waqtiga ee hadda u harsan dowladda iyo waqtiga raaci kara
kan kalena waxa waaye waxay noqonaysaa 4 bilood ay noqonaysaa wax ka zaa'id maalintii 4 bilood oo ka bilaabanaysa waxaan rabaa inay dhageystayaasha wax badan fahmaan ka bilaabanaysa bishee November kadib ay ka bilaabanaya 4 bilood marka 9 biloodna November ay ka bilaabanaysa aadaad u mahadsantahay November kadib aad u mahadsantahay si fiicanaad u soo araaratay si fiican baadna u baahisay laakiin su'aalaan ku weydiin doonaa intaana martida kale u gudbin waxaad tiraahday muddaan soo wadnay mudda meeqa biloodaad magacaabantihiin guddiga doorashooyinka Xaliimo 5 sano July 27 2020 waxay noo noqonaysaa maalintii nala dhaariyay way 5 sano ay noo noqonaysaa 5 sano oo carbinaan ku soo jirnay iyo isdiyaarin oo doorasho soo diyaarin marka qofka dhahay doorasho lama qaban karo waa inuu cilmi ku soo fadhiisiyaa sababta loo qaban karin ayaga ku weydiin doona madashi baa nala joogtaa senator Fartaag haye Xaliimo wad maqlaysay senator Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag Muqdisho joogo ku soo dhawaaw Xaliimo way sababaysay way soo araratay su'aashada waa mahadsantahay Cabdirasaaq Catoosh ku salaamaya adiga iyo idaacada BBC-da iyo dadweynaha Soomaaliyeed meel kastoo iga dhageysanaya waa salaamaya waxaan salaamayaa saaxiibkay Cabdirashiid gudoomiyaha Heritage waxaan salaamayaa Marwa Xaliimo Ismaaciil Xalimeeray gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka aad iyo aad baan idin salaamayaa waa mahadsantahay Xalimeeray waa maqlaayay hadalkeeda aad baan u dhageysanayay waa hadal aad iyo aad u wanaagsan laba doorasho ama laba nooc doorasho yay soo bandhigeen nooc biometric lagu sheegay muxuu ahaa oo muddo dheer laga soo shaqaynayay oo u baahan 13 bilood iyo nooca kale ee manualka ah oo u baahnaan doono 9 bilood markii lagu daro maxaa la yiraahdaa muddaxileedkana 4 bilood camal noqon doonto way dadaashay marwada iyo guddigeeda aad bay u dadaaleen way isku dayeen maxaa la yiraahdaa inay wax qabtaan aad iyo aad baan uga mahad celinayaa dadaalkooda dheeriga ah oo sameeyeen waxaan rabaa markii inaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheego doorashadan muxuu ahaa waqtigeeda matqaana inuu qabsoomo la rabo waxa weeye golaha baarlamaanka labadiisa aqal doorashada ay soo gudbiyeen oo aqalka golaha shacabka soo gudbiyey golaha aqalka sare u soo gudbiyey golaha aqalka sarena uu iska soo baasmareeyo madaxweynaha uu ku saxiixay meeshii madasha aheedoo la wada ogaa horta ma ku jirto wax manual la yidhaahdo looguma jirto oo waxa la saxiixay oo labada gole ay soo baasmareeyeen waa biometric oo ahaa marka horta kaasaa la isku ogaa oo xeerka waxa noogu qoran iyo muxuu ahaa sharciyada noo qoran waa midka biometric ma ahan midkan kaleeto manualka meel kasoo booda garan mayno waa mid un hadda iska yimid oo kolley ayadii u malaysay muxuu ahaa guddoomiyaha ay u malaysay in muxuu ahaa isagaas laftirkiisu uu xal yahay xal laakiin uusan ahayn kii xaqa ahaa haddaan marka intaas aan muxuu ahaa ka soo noqdo barnaamijka hadda ay marwada noo sharaxaysay oo 5 sano la soo shaqaynayay tababar baa lagu soo jiray kan baa la soo sameynayay waxaas iyo waxaas baa loo baahan yahay waxaas intaas ay soo aqrinaysay waa waxay dadaalka aan uga mahad celinayo weeye laakiin waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego barnaamijkan haatan waa lagu mursay la leeyahay ma aha barnaamij hadda bilowday ma ahan Soomaaliya markay burburtay oo 9 la kala tagay sanadkii 2000 baa waxa la iskugu soo noqday meesha la yiraahdo carta la iskugu soo noqday oo la yabyabay dowladnimada muxuu ahaa cusub ee Soomaaliya oo Cabdulqaasim Salaad Xasan Dictor Cabdulqaasim Salaad Xasan madaxweyne loo soo dhigay laga soo bilaabo 2000 bay ahayd haddana sanadkii waxaan joognaa 2020 ka sano Soomaalidii mataqaanaa kala tagtay ee kala irdhowday muxuu ahaa kala gashay duurka Ilaahay kala gashay waxay isku yimaadeen isku aamineen wuxuu ahaa wax yarka ah ee la wada qortay ee dastuurka ku qoran ee mataqaanaa hadduu Ilaahay ku samato ogol yahay wax badanna laga qabtay wax badanna aan laga qabanin laakiin meesha kaliya la iskugu imaanayo oo Soomaaliya oo dhan isku aaminsan tahay ay tahay 4 sanaba in mar doorasho la galo 4 sanaba in mar doorasho la galo barnaamijka hadda ay Xalimeeray sheegayso oo 13 bilood mid hadaan soo qaato muxuu ahaa loo baahan yahay Xalimeeray muddada ay shaqayn lahayd waxa muxuu ahaa July bay ku egtahay muxuu ahaa sanadka 2021 ayadii iyo mandate-kii halkaas ku yahay qaabkee marka yaa lagu wareejinayaa sharcigan wuxuu dhigayaa lama ogolo aan iyada weydiino senator Fartaag waa weydiin doonaa waa ka baxay waa weydiin doonaa aan u soo noqdo midaan u soo noqdo waxay Xalimeeray hadda muxuu ahaa muddada ay sheegayso Soomaalidu waxay tiraahdaa dhiciska inta mindida loo soo wado ayay nafta dhaxda uga baxdaa Soomaaliya oo 20 sano isu soo dhiibaysay oo maalin muxuu ahaa 4 sano muxuu ahaa qolo soo qaadanaysay oo dastuur yar oo ku meel gaar ah dhameystireen muxuu ahaa madaxiisa la iskugu dhiibayay si inaan carqab u dhicin
si uusan dib u dhac u dhicin si uusan isku horimaad u dhicin 4 sano mataqaanaa qolo loo dhiibahayay baan soo wadnay waxa lala yaaban yahay oo madasha ay la yaaban tahay oo dowladda ay la yaaban yihiin oo Soomaali weyn ay la yaaban tahay waxa weeye annaga haatan xildhibaanada muddadeeda waxaa ka dhiman waxaa la doortay aniga 19 October baa la doortay haddana waxaa la joogaa July baa la joogaa August iyo September baa dhiman October 19keeda waxa weeye waa in doorasho aan aadaa doorasho loo ciribta ahaato doorashada marka muxuu ahaa madal maxay wadataa ama dowlad maxay wadataa ama dowladda federaalka maxay wadataa macno ma sameynayso waxa macno sameynaya doorasho Soomaaliya oo dhan isku timaado oo la wada ogol yahay oo nimanka la yiraahdo muxuu ahaa dadka siyaasadda danaynayo dhan ama mulkiilayaasha siyaasadda loo bixiyay ama muxuu ahaa in isu yimaadaan senator Fartaag tashadaan oo ay tashadaan oo maxaa la yiraahdaa xalimeeray barnaamijka ay soo bandhigtay haatan barnaamij shaqeynaya ma ahan muxuu u shaqeynaynin 13 bilood iyo 9 bilood 49 milyan iyo 69 milyan barnaamijkaas oo arkaysaan Soomaaliya u jeedaa hadda inuu san ahayn barnaamij doorasho lagu galay inuu san ahayn waa arkaynaa ayaan hadda wada sheegaysaayo qof cod hadda ma saamaxaysay tiri haddii saamaxaynin in la soo dhex dhigo miiskii oo maxaa la yiraahdaa dadkii ay ka wada dhaxaysay muxuu ahaa siyaasadda Soomaaliya waxay ahayd ukun yar oo la wada celinayo kor loo hayay la iskugu wada imaado oo laga tashado waxa loo diidayo lala waad maasanta waan aadi doonaa doodaan rabnaa waxa soo dhan inaan ku falanqeyno Xaliimana su'aalahaaga waan weydiin doonaa dhowr su'aalood isku dhex dartay waxaan jeclahay Cabdirashiid Xaashi falanqeeya arrimaha Soomaaliya wax badanna ka qoray macadka cilmi baarista heritage mas'uulka ah Cabdirashiid waxaan rabaa intaanan hadallada Xaliima Yare iyo Fartaag ku sheegin inaad bal noo sheegto qoraalkii maalin dhaweed aad soo saarteen laba qaab baad sheegteen in wax looga qaban karo doorashooyinka bal mar kale noogu celi labada qaab waad mahadsan tahay Atoosh waan salaamaya dhageystayaasha iyo Xaliima iyo senator Fartaag anagu waxaan runtii waxaan eegnay challengeska jira culaysyada hadda hortaagan doorashada guddiguna waxda markay baarlamaanka hortageen way sheegeen oo waad mahadsan tahay hadalka codka laga soo dhexgalay anagu marka challengeska taagan oo hadda jira guddiga doorashooyinkuna ay baarlamaanka ka hor sheegeen baan fiirno ee ugu horeysa khilaafka siyaasadeed ee taagan iyo midii hadda senator Fartaag uu ka hadlayay oo ah waqtigii hay-adahan dastuuriga ah oo sii dhammaan raba iyo dastuurka aan ogolayn waqti kororsi aan ogolayn oo doorasho khasbahaya annagu marka arrintaas fiirnay waxaan niri waxaa loo baahan yahay maadaama waqtigan aad u yar yahay guddigii hawsha loo igmadayna ay dhaheen waqtigiina la ka suuhayay doorasho kuma qaban karno ama dastuuriga ahaa oo si hadda walaashii sheegaysay 13 bilood oo November ka bilaabanaysa iyo waliba 9 bilood iyo 4 bilood ay sheegeen oo waqtiga waa dhaafayna ay dhaheen labada goorba iyo mid hadda senatorku sheegay oo laftigooda waqtigu ka sii dhamaan rabo July waqtigu ka dhamaanayo marka waxaas oo dhan fiirinay caqabadaha waaweyn oo guddiga ka baxsan oo siyaasadda u badan markaan fiirnay waxaan niri sida ugu dhaqsaha badan hal isugu yimaado oo laba mid hal sameeyo in doorasho nooci qabsoomi kara lagu heshiiyo oo laga wada shaqeeyo sababtoo haddaan maamul goboleedyada iyo dowladda iyo xisbiyada oo tartamaya haddaan la isla ogolayn sida wax u dhacayaan doorasho ma dhacayso Afrikan wax ugu badan oo qalaasaha keena waxa weeye markii doorashada la isku fahmi waayo dhibaata ka dhacda marka anagu dhibaato macnaha ka taxadarayna anagoo waqtiga yaraanta safiirinayna anagoo gudoomiye Xaliima iyo tiimkeeda warkay soo gudbiyaan waqtiga wax ugu qaban karaan fiirinayna anagoo fiirinayna dastuurku inuu soo ogoleen in lagu darsado ama ku darsi waxaas oo anagoo fiirinayna waxaan yiraahdaa la isku yimaado oo doorasho in direct asiir u dhacday anagu mid baan hadda kor soo jeedinay wax ka fiican waa la keeni karaa oo halkii xildhibaan buu yaraan kun qof ay codeynayso meeshii sanadkii hore ay doorashadii hore ay konton ugu codeysay ama dawladdan waqti macnaha waqti kororsi hal la sameeyo baarlamaankan iyo dawladdan iyo waqti kororsi la isla ogol yahay ama ayaga hal loogu daro ama qaarkood mucaaradka baawarka waxa ka siiyaan ama wasiil rab hal yeelo laakiin ama waqti kororsi la isla ogol yahay hal la sameeyo ama doorasho la isla ogol yahay hal la sameeyo aad bad uma san macnaha waqtigiina lagu siqahayo lana kana fog yahay xogaa khatar baan ka aragnay focuska iyaguna wuxuu ahaa guddiga tababarkooda iyo aqoontooda iyo dadaalkooda 5 sano ma ahane waa duruufaha ku hareeraysan oo ayagu ay sheegeen markaas inuu guddigu intay hoos u hadlaan
waxay dhahaan hadal macnihiisu noqon karo hoos waxay u oranayaan daan jannada galo nabigaan arkahaya marka hadda saa nabigu u aragtay waa inaad jannada gashaa sallallahu alayhi wasallam marka guddiga dhibaatooyinka waa weyn oo jira oo siyaasadda ugu horreyso way sheegayaan laakiin si nuxuusay u sheegaysaa halibana waxay xoogga saaraysaa waxay u diyaaraha iyo say u dadaaleen iyo howlaha isugu toosoosan taas su'aal la gelin maayo su'aasha meesha taalo oo dadka la haysto waa siyaasiyiinta wax badan ka maqan yihiin qir bay taagan yihiin waa kala fogaadeen labadii xataa aqalba hadda kala fogaaday oo xeerarkii la kala cararaya marka xaliiba markaan cid haysano ayada ma haysano iyo guddigeeda waa inay fahamtay waa siyaasiyiintaan haysanaa ayadaana asxaan u sameeynaa oo siyaasiyiinta u canaanayna say ula shaqeeyaan cabdirashiid aad baad u mahadsantaa si fiican baad u dhigtay qoraalkii dhowaan ay daraasadda ku samaysay heritage xaliimaan rabaa marka inaan weydiiyo xaliima waad dhegaysanaysay senator fartaag iyo cabdirashiid xaashi waxyaabaha welwelka laga muujinayo waxa weeyaan muddadan 13 bilood ah muddaxileedkii baarlamaanku dhaafaya waad maqlaysay Oktoobar 19 fartaag la soo doortay buu yiri Oktoobar waa in qof bedel la helo fartaag ama isaga uu soo noqdo waa inay doorasho dhacdo taa qorshaha ma ku darsateen atosha horta waa maadsantaa waxaan kaa codsanaa inta aa u dheerayso kale inaa ii dheeraysid waktiga gabdhaha markasta waa la riixaa waa ogahay haya kuma riixayo waa ku dheeraynaya soo gudoomiye isu soo diyaariyay waxaan aad u jeclaa oo isu soo diyaariyay mudane cabdiraxmaan cabdishakuur oo wax badan guddiga eedeynaya inaan maanta fagaaraha isla nimaadaan rabin waa ka xumahay inuu soo geli waayo waa ka xumaa waana ka cudurdaarnaynaa cabdiraxmaan lama joogay qoladan kale inuu soo geli waayo waxaan u sheegahayaa walaalahay waxaan u sheegaa horta horeeto cabdirashiid waxaan u sheegaa guddigu ciduu ka cabsanaa male ciduu ka xishoonaa male shaqo aan loo dirina faraha ma gashto in la heshiin waayo in muxuu ahaay sharciga baarlamaanka ka soo bixi waayo dembi ama shaqo u taala guddiga ma aha madaxdii qaranka madaxdii hadashay ama madaxda xisbiyada ha noqdaan ama qof ha noqdaan waxaan ka codsanayaa inay ay ogaadaan annagu shaqaana loo diray waxana loo dirana waa shaqadii doorashada waxaana aad uga xumahay qof aan garanaynin shaqada doorashada wax kasta cilmiga ku fadhidaa aan garanaynin inuu la soo boodo doorasho lama qaban karo waxaan kaloo aad uga xumahay in la iska indhatiro oo dastuurka markii la rabo lasoo qaato marka kalena laga boodo doorasho soo dhacday oo dastuurka raacday ma jirto doorashona ma ahayn wixii aan soo marnay xulashay ahayd annagana waxaa naloo diyaariyey waxay ahayd doorasho horta hala kala saaro annagu doorashaan diyaarinayna ummadda soomaaliyeed hadday doorasho u diyaar tahay waa u diyaarinaya waxaan rabno hala keeno tan kale marka dhaqaale laga hadlayo ma doorasho lacag la-aan lagu qabtaa jirta lacagtii ugu raqiisneedaan keennay su-aalay noqonaya ma la helaa mise ma la helaayo waa isweydiinaynaa waa la raadinayaa meeshay ku maqan tahaana sheegaa oo laga heli karo laakiin lacag maxaa usoo qaaday la ima dhihi karo xaliimo iyo guddigeedu wuu tegayaa xaliimo iyo guddigoodu intaanan ka bixin dastuurka cidda ilaalisay hadda ka hor bal hala sheego doorashooyinkii soo dhacayay allaha siiye madaxweyne sheekh shariif kheyr allaha siiye wuxuu heshiis ku galay in 1 sano lagu daro doorashadii midii hadda ka dambaysa 2016kii walaalkii cumar cabdirashiid baarlamaanku 2015 dhexdeedii yimid wuxuu yidhi doorasho ma dhici karto broseskaas oo doorasho dadban ahayd ee aan ahayn doorasho weyn waxay qaadatay 13 bilood sababtay u qaadatay maxay tahay waan horey loogu diyaar garoobin laakiin hadda doorashada horaa loogu diyaar garoobay 5 sanaa lasoo diyaarinaya keliya ogolaasho is-ogol siyaasadeed sharcigii doorashada dhaqaalihii waa horey uga dirdiri oo horey xalima wad maasanta su'aalaha raba meeshan aan kaa weydiiyo adoo wato kaadi maya kama bixin uma ka bixin waqtiga institutionka guddiga horta waa commissionka waa 9 qofood oo commissionka waxa uu ka dhacayo waqtiga ma ahan institutionka weyn ee jira ee dhisan ee boqolaalka shaqaale leh ee agaasimayaasha waxtarka leh ee agaasimaha guud waxtarka leh ee muxuu ahay adviserada leh institutionka uu dhisan yahay qofka madaxda isagaa tagaaya kan kalena waa imaanaa laakiin shaqada ciddi qabanaysay waa dhisantaha markii haddana 1 sana u haray doorashada aan sheegna aan qabanayno
hal bilaa ka raacayso inta kale waa la joognaa marka yaa laga dhiganin tan baarlamanka xalima baarlamanka maxaa laga yeeli baarlamanka November ay ugu eg tahay labada aqal ee golaha shacabka ah ee uu leeyahay fartaag war ani October inaan doorasho aadaan raba maxaa laga yeeli baarlamanka September ee ugu ekeed sanadkii hore oo haddana December dhamaanay soo heshiis ma ahayn wixii lagu gaaray halka adi 13 bilood keentay bil laba maadan keenin saddex ma sheegin aniga 9 bilood aan sheegay iyo 4 bilood 13 bilood ma sheegin waxaan ku ir processkii doorashadii dadbaneed ahayd 13 bilood qaadatay iyadoo laga sii shaqeyn tan waaba diyaarsantahay waa laga sii shaqeeyay waayahay su'aal kale raba su'aal kale uu fartaag ku weydiiyaan raba inaan ku weydiiya Cabdirashiidna soo qaaday adiga mudaxileedkaagii Juulaay kaaga eg tahay maxaa la yeeli Juulaayda bisha soo socota 2021 2020 hadda waxaan kuu sheegay soo maaha haye noo jilci sagaalka qof oo constitutionka sagaalka qof oo commissionka ma aha institutionka keligood institution weyn oo wax kasta qaban kara waxaan madaxda ka codsanaa waxaan dadweynaha ka codsanaa waxaa inta Soomaaliya danaynaysa ka codsanaa xalimeeray guddigeeda inaan la dhihin guddigaas waa guddiga doorashada madaxa bannaan oo soo wada shaqeeyay oo isu soo garabsaday oo go'aanka soo wada gaaray oo meeshaas soo gaarsiiyey ma ahan xaliimo keliya حليمة إسماعيل سيف قرصن بعض أشرحذي أنك مدحلات كأن مركو لما هذا جولاي هاي أدي ويجر تاشقالي هوسي فرسمنا ويجران باتري واد ما سنتاي هل كان نوهاي أن وذا دقيسن نقار كم إذا دقيستياشا فكر كود سو ديبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيقو عبدوهاب ضيب شيخ جامع عبد الجيسي دقن حرونت قبل كأوضل مقالة بورما أنيقا وحي إلاتسهاي وحي إندا أركيان بي إلكاقويان إناني معقول أهين إن لقبتو دورشو هل عد هل قفأه حسيشي ليسويدي ورسيدي حيغن حيغا النقطة إلكنا النبات قران أوله هلو إن دورشو أوني دعضو سنة كسوس عدا إلا 2021 sababta oo ah wadanku wuxuu soo maray marxalado kala duwan oo aanu soo joognay hadii aanay doorasho dhicin waxay la mid noqon doontaa dawladihii ku meel gaarka ahaa ee ku dirsan jiray farmaajo iyo khayre gudiga doorashooyinka baarlamaanka guud ahaan waxaan leeyahay mas'uuliyad baa idin saaran gudta doorashadana sidaad u qaban lahayd qabto Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh waan idin salaamay dhamaan wariyaasha BBC magacaygu waa Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo jooga degmada Gurcaal runaantii aad iyo aad ayaan u xumaa khilaaf ka taagan doorashada Soomaaliya waa ahaan loo baahan yahay madaxda dawladda iyo mucaaradku inay isku yimaadaan waxaana muuqata inay saddex kan doorasho qof iyo cod ah marka waxa loo baahan yahay in lagu laabto doorashadii hore oo ahayd doorasho dadban إسماعيل oo joogta Hargeysa doorashooyinka Soomaaliya lagu muransan yahay sanadkan waxa soo hoos galay oo madaxweyne Farmaajo uu banka soo dhigay in meeqaanka gobolka Banaadir meel la saaro waa la raagay in gobolkaasi maamul goboleed loo sameeyo isbeel uu gayaayo waa gobolkiisii oo waliba culayska iyo dhimashada iyo qarax iyo silcuba saaran yahay hadii la ila tashan lahaa markii maamul goboleedada la dhisayay waxaan isleeyahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyaanu reebi lahaa say maamul goboleed buuxo dawladda federaalka Soomaaliyeed fadhiisato Soomaaliya oo dhan ay bidaan ugu noqoto shabeelladii hoose waxay maamul goboleed la samaysatay Bay iyo Bakool shabeelladii dhaxana hir shabeella laga dhigayo waxay maamul la samaysatay Hiiraan waxay noogsanahay hir shabeella inuu maanta magaalada Muqdisho u joogo magaaladii Balcad hadaad ka dhaqaaqdo suuqii xoolihiisa wax raacdaaba taagan tahay koonfur galbeed waxay u soo taagan tahay Afgooye oo hadaad soo dhaafto iskooski Banaadir marka gobolka Banaadir waxaad moodaa in dhulba loo reebin meel dawladii Soomaaliya ay dadka ugu yeedhaba Assalamu alaykum BBC magacayga Maybo Cabdisalaan Cabdullaahi Isaaq Orooga magaalada Baydhabo Janaay xarunta gobolka Baay hadii aan raayay ku dhiibada doorashada Soomaaliya oo foodaanay hayta iyo diyaar garowga inaga dawladda ama xisbiyada la diiwaan geliyay oo mucaaradka marka la fiiriyo runtii hatama muuqata doorashada diyaar garoowi sida gudiga doorashada
gabarta gadoomiyaha hay'adda xaliim yaray biya sheegdi iniyo fadayaan muddo inilanka dara saas darteed dawladda awalba meel eraayis ku shakiisanay inay muddo kororsi codsado doonta hatana maylayba aaminsanaa una hadii una dadka ku jeeda deegaanada koonfur galbeed inay dawladda muddo kororsi saas ka weydiyahay oo dawladda waliya xaqabado ay 4 sano fadahay taatan inay naarta meel eraayis tum isad bilood ito meelama bilood mise wal sanad ku yaraagsan ka qobadaan wali 4 sano qobado wayni taasna wala socdo ma dawladda maylayna hadii wala qobado way xilkay isku wareejiyo iidan ma hasantin BBC Soomaali way mahadsan yihiin ayagana qaar ka mid ah dhageystayaasha doodii jimcaha ayaan bartanka kaga jirnaa mawduuca aan ka doodayno galabtana waxa weeyaan muranka doorashada Soomaaliya ee hareeyay soo tooska siyaasadeed ee dalka Soomaaliya Xaliimo Yaray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka yaan rabaa inaan su'aal weydiiyo Xaliimo arrimahan siyaasad bay lugta la galayaan oo waxan aad hadda ka akhrisay baarlamaanka hortiisa saameyn badan bay keentay oo siyaasadeed oo dawlad goboleedyada qaar ka mid ah kuma qanacsano madashii wad maqlaysay fartaag baa nagala jooga ma la isdhihi karaa arrin muran keentay oo xaalkii waddanka uga sii dartaad la timid catash waa mahadsantahay horta aniga muran arrin keentay ma aanan keenin dadweynaha dhahayana doorasho ma dhici karto wiilka doora ma joogo doorasho waqooyi waa ka dhacday waxay xamar iyo boosaaso iyo kismaayo iyo mareeb uga dhici lacdahay ma aqaano oo loo diidan yahay doorashada waxaa hortaagan dhan gaar ah hortaagan aniga sida ii muuqato laakiin ma raba arrimaha siyaasadeed inaan galo su-aasha ani i weydiisana dad kale qusaysaa ani ima qusayso laakiin cotoosha waxaan kuu sheegaa inaysan ahayn markii ugu horreeyay ee aan sheegnay 2020 November haddaan intaas aanan helin doorasho ma qaban karno markii ugu horreysay ma ahayn waxa waaye waxaan aad u jeclaystay hadal uu sheegay abwaan sube wuxuu yidhi dadka akhristayaal waaye aqoon-yahano ma aha micnaha iskoolaa la wada galay jaamacadaa la wada galay waxbaa la wada akhriyay laakiin aqoon-yahan ma aha waxaa waaye aqoon-yahanku waxaa waaye waxa uu bartay waa inuu ka adag yahay meeshiisa ku fadhiisiyaa waxna keeni karo oo soo abuuri karo inuu wax abuuri karo okay Xaliima oo hoos dhageysa marka waxaan kuu sheegaa inay ani factian ku siinayaa sanadkii 2019 keliyaan kuu sheegaa inta jeer ee aan sheegnay arrintaas 2 Agoosto 2019 waxaa Muqdisho ku qabanay shirweyne aan isugu keenay xisbiyada qaarkood bulshada rayidka xukuumadda baarlamaanka iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed waxaana ku soo bandhignay heerka diyaar garowgeena ee guddiga madaxa banaan markaas ma sheegteen Xaliima markaas ma sheegteen inaan doorashada xilligeeda dhici karin dhageyso hadda aan iga dhageyso aan ku sheegay way ku imaaneen waxaan sheegnay waxyaabaha caqabadaha ee hortaagan oo ugu horeeya sharciga doorashooyinka waxaan sidoo kale shirweynaha kula wadaagnay dhammaan daneeyayaashii kasoo qayb galay dib u dhac farsamo ee ku imaan kara haddii sharciga doorashada aan la ansixinin January 2020 saasaan u sheegnay maxaa yeelay December 2018 aan rabnay in nala siiyo ma nala siin sharcigii markaasaan soo bilaabnay laakiin eedaale Xaliima eedayaale eedayaale adiga raadi cidii leh raadi 14 December 2019 waxaan hortagnay baarlamaanka dhageyso 4 tagtaada ku shuba 14 December 2019 waxaan hortagnay baarlamaanka oo aan la wadaagno warbixinteena ku aadaneyd arrimaha diyaar garowga doorashada waxaan baarlamaanka la wadaagnay jadwalka doorasho ee ku salaysan in doorashadu ay dhacdo 27 November haddii sharciga doorashada oo dhimaystiran lagu soo wareejiyo January 2020 Xaliimo Ismaaciil si quruxsan u dhigtay si halka haye aan ku dhameeyay 20 ilaa 28 December 2019 waxaan shir wada tashi la yeelanay xisbiyada siyaasadda ee sida ku meel gaarka u diiwaan galshan si aan ula wadaagno heerka diyaar garowga jadwalka doorashada ee ku salaysan assumption-keena sida aan ku talagalayno in sharciga wuxuu ahaa in sharciga doorashooyinka aan helno January 2020 haddii aan heli weyno inaysan suuragal noqon karin inaan 20 November doorasho qabano 27 waxaan rabnaa in aan si gaar ah u xuso 27 December in aan si gaar ah shir ula yeelanay
madasha xisbiyada oo mudane xasan sheekh uu hogaaminayo markaasay maalintaan la fadhiisanay xaliima waad mahadsan tahay xaliima hadalla markhaatiyaad sheegtay aan ku dhameeyo abrow aan ku dhameeyo waxaan la wadaagna ayana jadwalka kulli oo u sheegnay November hadda Juuntan jimcihii ugu horreysay ee Juuntan waxaan la fariistay labada madaxweyne iyo musharaxa madaxweynaha Cabdiqaadir Cusable waxaan ka wada hadalnay sida ay wax u socdaan iyo sida ay noqonayaan oo weliba u sii sheegay in waqti uu ku zaa'idayo mana waana isla qaadanay markaas xaliima bes waad mahadsanta madashii iyo aqalkan baarlamaankeed ka hadlaysaba fartaag baa nagala jooga fartaag waad maqlaysa xaliima yaray horay u afeefanay tiri aqalka saraa ugu tagay fartaag aqalka saraa ugu tagay wuu fadhiyey saasaan u sheegay haddaysan dadku wax akhrisanaynin haddaysan markii hore hadlin bes isaga haynoo sheego cabdullaahi ismaaciil baarlamaanka ee sharciga maxay u haysteen intaas cabdullaahi ismaaciil waad maqlaysa xaliima yaray markhaatina way keentay iikaadi xaliima halkaa igu hay baarlamaanka ku xiji waayo xaliima iikaadi senator fataag waad maqlaysay markhaatina way keentay adigaa fadhiyaa la yidhi maxaad sharciga doorashooyinka u haysateen intaa waad mahadsan tahay cabdirasaaq xalimeerey marwada muxuu ahaa guddoomiyaha ahna aad baan ugu mahad celinahayaa way dadaashay xalimeerey iyo guddigeeda way dadaaleen horeyna waan u sheegay haddana waan ku celinahayaa aad bay u dadaaleen laakiin markii hore oo sharciyada la keenayay muxuu ahaa labada aqal golaha aqalka shacabka lagu horumariyey waa runteed way hor tagtay waa soo baasmareeyey annagaa noola keenay wayna hor timid waa runteed waa fadhiyey annaguna waa baasmaraynay madaxweynahan u gudbinay dhammaan waxaasoo dhan waxaan markhaati oga nahay weeye hadda markii muxuu ahaa marnabaa loo tagayay qodobka waxaan rabaa inaa xalimeeri iyo dadweynaha iikaadii iikaadii sharcigan sheegaya doorashooyinkaan sheegaya inaan wax la akrinin taasaa ku tusinayso inaan waxba la akhrisanin taasaa ku tusinayso sharci ma aanan keenin sharcina ma dejino waxaa idin dhahanay sharcigii aan rabnaahe keena adinka aad inaad keentiin ha iska leexinina aan kula qaatiikaada marka waayahay xalima joog subayna nasu abaay xalima u kaadi hadde xalima kursi aad raadinaya kursi xalima u kaadi fartaag ha noo sharxee haye senatore waxaan rabaa inaad dadweynaha soomaali u sheego dooda siday u socoto horta inay dhegeystaan baa la rabaa iyo gabadha waxay ka gubanaysa o dhan in adinka soomaali bal aad dhegeystaan baa la rabaa waxaa la yidhi cayaarta maxaa loo tumaa habeenkii haddayna wax ku jirin markaas labada goro la keenahayay sharciyadaas aan sheegayno iyo hadda markii maalin dhaweyto muxuu ahaa la geenahayay golaha shacabka qodobka 53 ee doorashooyinka wuxuu leeyahay xalimeeri si fiican u dhegeystaan rabaa wuxuu leeyahay waxaa muxuu ahaa hor imaan doontaa muxuu ahaa guddiga wuxuu hor imaan doonaa labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo isla fadhiyo markaan ogaanay khilaafyada jiro markaan ogaanay xeerarkii afarta ahaa ee guddiga wadajirka ahaa labada guddoon ay u gudbiyeen inay kasoo shaqeeyaan afarti xeer oo mataqaana aqalka sare guddigii aqalka hoose muxuu la isku daray ay kasoo shaqeeyeen labada guddoon ay saxiixeen oo timreesh ku dhufteen markaan ogaanay in wax laga bedelay oo golaha shacabka ay la carareen oo ay mataqaanaa sidii loogu talagalay ay yeeleen sidii loogu talagalay saana ay yeeleen annaga aqal sare ahaan waa ka baxno waxaan idhi sax ma ah waxaan meesha la geenayo xeerarkii aan isku ogeyn ma ahan oo waad ogtiin in khilaafkii meesha ka tagna uu weli taagan yahay waa asaga guddoomiyaha aqalka sare uu soo bandhigay maalin horeeta maxaa la yidhaahdaa labada dukumentigii xeerarka afartii hore ahaa laisku raacsanaa iyo dukumentiga haatan golaha shacabka la horgeeyey waa laba dukumenti oon islahayn oo markhaati madoonto ahoo waa la wada arkahayaa wax badan baa la qaldahayaa waxaan usoo noqonahayaa marka walaashii xalimeerey baan usoo noqonahayaa waxay tiri muxuu ahaa doorashada xilligeeda anagu madal ama aan ahaano ama mataqaanaa saamilada siyaasadeed ha ahaato ama soomaali o dhan ha ahaato wiilka borama kasoo hadlaayo wuxuu fiirsanahayaa waa run xaq buu uleeyahay inuu ka hadlo midka kismaayo kasoo hadlaayo iyo midka borama kasoo hadlaayo iyo midka boosaaso kasoo hadlaayo dhammaan waxaa la fiirsanahayaa doorashada waktigeeda inuu ku dhaco taasoo ahayd wax soo socda ilaa sanadka 2000 ilaa haddeer waxay leedahay marka shuruud bay xirtay waxay tiri horan u sheegnay oo haddaanan la helin lacagtaas la eg waxba ma qaban karno wadaadkii wuxuu yidhi haddii waa la waayo maliska joogahayaayo mataqaanaa malaguru la-aanahayaaye haddii 69 milyan la waayo ama 49 milyan la waayo soomaaliya bal dhegeysta doorasho ma dhacaysa miya ay noocay rabtaba ha ahaatee oo marka dawladihii waaweynaa oo dhisnaa oo wax walba u dhisnaayeen oo ciidamada u dhisnaayeen baa doorashooyinkii markii lama qabanayo la yidhi waxa aragto haddaan arkayna dhacayaan ama darisan hala ahaadaano ama meelo kaloo fog ha ahaadaano soomaalidan masaakiinta ah ee marada yarta oo la toltolay ah oo laisku keenahayo haddii waktigii loogu talagalay doorashada
in la daba mariyo ama la suuqmaasuqo la damco wixii ka imaan kara hadhowdii xalimeynay ayada dusha ma saaran doonto waan weydiina marka cabdulaahi ismaaciil waxaad ugu lahayd haddii ma samayn hadda maalin hore waxay tiri waxaan la kulmay madaxweynayaashii iyo madashii la kulmay jiray waa warsanay xalimeynay markaad la kulanteen maxaad tirahdeen baan labadii madaxweyne iyo cabdiqaadir cusuble waxaynu ku tiri wax la qarinaya ma ahan markaan baarlamaanka tagay waxaan u sheegay kahor wax idiin sheegi maayo ku tiri waa joogan madaxweynayaashii cabdiqaadir cusublena waa joogaa iyadaan weydiiyo iyadaan weydiiyo haddii marka ikaad waad weydiinta waxaa rabaa marka in indhaha la tira ma ahan waxaana waa doorasho soomaaliya inay sugayso waa xagala geel oo gunti wax la qariyo waa ka weyn tahay ama guntiga xalimeynay ha ahaado ama gunti kala hayo wax la geliyo waa ka weyn tahay barnaamijkan soomaaliya badbaadadeeda waxaa ah in laisu imaado oo saamilayda isu timaado oo baarlamaanka isu yimaadaan oo maxaa la madasha ay timaado oo mataqaanaa la yidhaahdo war xaggeen u soconnaa waad mahadsan tahay fartaag aan weydiina haddee qofkaad eedaynayso waxaan tuhumahayaa madmadow baan tuhumahayaa waxaan tuhumahayaa soomaaliya wixii lasoo toltolayo hadda iyada aan weydiino waxaasoo madmadow ah fartaag ha ikaadi halkaa ku hayda aan weydiine xaliimo yaray ma jirtaa qodobka doorashooyinka 53 inuu dhigayo inaad labada aqal hor tagto horta waxaanu kala ogeyn senatarka inuu wax qarqarinaayo oo rabin inuu ummadda soomaaliyeed runta u sheego si uu kursigiisa le u ilaalsado maya su-aasha iga jawaab xalimo hamay xalimo su-aasha iga jawaab siduu iila hadle waa aragtay hadda waxaan u sheegay senator waaye guddigan waxaa la yidhaha guddiga doorashada qaranka ee guddiga xaliimiyarey ma aha xildhibaanada baarlamaanka u codeeyeen qof ugu codeeyeen guddigan mudane xasan sheekh madaxweyne ahaa oo soo fixiicay marka guddi xaliimiyare ma aha horta senatarka aniga nafteyda ma dhahay baarlamaankaasayto aqalka sare waa guddigii cabdi xaashi ma dhahaye waxaan ka codsanaa horta institutionka uu madaxda u yahay senatarka u yahay ha aqoonsado oo guddiga doorashada madaxa haye su-aasha ka jawaab su-aasha maxay ahayd doorashooyinka sharcigooda qodobka 53 soo ma dhigaya labada aqaloo isla jooga inaad hor tagto sharciga guddiga lagu sharciga guddiga sharciga dhismaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka wuxuu leeyahay 4 biloodba mar inuu u warbixiyo guddiga doorashooyinka golaha shacbiga xaanshiya ay iisoo direen si aan ku diidi kara ma jirto waa sharci inaan hortago oo aan u warbixiyo waana ka sheegay meesha haye aqalka sare maxay hortagi weyde aqalka sarena waa sheegay waxaa iri aqalka sarena diyaara u ah inaan u tago welina sidii istanbay ugu ah waad mahadsantahay halkaa igu hay su-aal kalean ku weydiinayaa madasha markaad is aragteen ma ku tiri idinma warramayo ilaa aan golaha baarlamaanka hortago siduu fartaag sheegayo ma dhihin asaga senatarkan waxba ogeyn bes waad mahadsantahay waad ka jawaabtay xalimo waa ka wada hadalnay si fiicanaana uga wada hadalnay waad mahadsantahay afgaranay waad mahadsantahay waxaan jeclahay sheekh shariif sheekh axmed oo arrimahan ka hadlayay inaan wada dhegaysano arrinta guddiga doorashooyinka waa dadaaleen wixii qaban kareen ay qabteen ani ma raba aadan aan u eedo laakiin waxaan rabaa inaan iraa mas'uuliyad aysan lahayn ay qaateen mas'uuliyadda aysan lahayn waxaa waaye doorasho maxay u baahan tahay 1 amniga u baahan tahay 2 waxay u baahan tahay heshiis 3 maxay u baahan tahay dhaqaale guddiga doorashooyinka maantaas mas'uuliyad ka saaran tahay maya waqtiga ay noo sheegeen maxay ku beesgareeyeen marka 13 bilood 9 bilood maxaa lagu beesgareeyey macnaheedu waxa waaye lama yaqaano doorasho goor ay dhici doonto bil xarf waahid saas waa doorasho goor ay dhacaysa lama yaqaano ma shaqaynaysaa ma shaqayn karto sheekh shariif sheekh axmed oo habeen hore ka hadlayay arrimahan murugsan xalimo yaray su-aasha waan u iman doonaa cabdirashiid xaashi oo kanada joogaan rabaa inaan waqti siiyo cabdirashiid waad isu dhegaysanaysay fartaagna wuxuu leeyahay war heshiis ma jiro labadii aqal heshiis ma ahan xalimo waxay tiri anigu siyaasad kama hadlayo farsamaan ka hadlaya maxaa kuu baxay waad mahadsan tahay cabtoosh horta midda koowaad waxaa weeye doorashooyinka sideeduba horta technical keliya ma ahanay siyaasad baa meesha aad ugu laban oo dad baa raba inay xukunka kala qaataan kuwa joogaan waxay rabaan inay xukunka joogaan wax kastoo ay ku joogi lahaayeen oo dadaalna waa samaynayaan kuwana gaaf wareeg bay ku jiraan oo xukunkaas iyo oodaasay uga soo dhici lahaayeen u qaadan lahayn bay ka shaqaynayaan
marka meel la isku bursanayo oo la isasirahayo oo la kala danaysanayo oo ninkii gacan markaas wax qabsan kara uu muraadsanayo oo waqtiga la isla fiirsanayo baa guddiga doorashooyinka qaranku horta ka dhex shaqaynayaan marka inay waxaas oo siyaasad ah oo dul hareeraynayo baarlamaankan si hadda walaashii af ku dhufanaysay waxaa dhici karta qaarkood inay rabaan inay laba kano sano ku darsadaan oo ku dhufsadaan oo sii joogaan madaxda meesha fadhida waxaa dhici karta inay rabaan meesha inay sii fadhiyaan marka horta waxaas inay guddigan inay maskaxda ku hayaan weeyo meel lagu bardoodamayo dagaal siyaasadeed oo ballaaran ka socda waa number 1 number 2 guddigan markii mudane jawaari uu baarlamaanka haystay waraaq buu u diray april 8 waraaq u diray wuxuu yidhi maxaa culaysyo iyo caqabado dhici kara 7 su'aalood marka weydiiyey waxaas goormee dhaca kulligoodna doorasho inay dhacdo salka ku wada haysa guddigu waraaq bay u soo direen hadda anigu dhihi maayo magaca gabadha walaashii sheegi maayo guddiga si tir loo dhahan u dhahaynaa guddigu waraaq bay soo direen april 7 baa jawaar u diray 7 su'aalood la yaqaano caan ah oo dadka arrimaha doorashada isku haya ay wada ogyihiin buu u diray waxaa ka mid ah dastuurka goormaa la dhamaystiraya dastuurka waxyaabo badan baa ka khusaya doorasho inay dhacdo guddigu waxay dhaheen June 28 baan jeclaan lahayn in la dhamaystiro ama saxda ku haynaa guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa sharcigiisa goormaa la sameynaya waxay dhaheen waxaa la sameynayaa maxaa la yiraahdaa 2018 2019 kaas la sameeyay dastuurkii weli lama sameyn maxaa la yiraahdaa sharciga doorashooyinka goormaa la sameynayaa buu ku yiri waxay dhaheen waxaan ku talaweynayaa ka rajo qabnaa 2018 in la sameeyo February 2018 ka hadda la sameeyay marka haddii taariikhdoodii hore la fiiriyo guddiga iyo siyaasiyiintu waxyaabaha ay cagwadaajinta ay ku dhex jiraan iyo arrimaha kale oo duruufaha dalka ka jira taariikh waxaa jirta lahaya ah in wax kasta sanad looga dibdhacayo wax kasta ay waraaqdaas ku qortay ama guddigu ku qoreen inay jawaar u sheegeen mid walba sanad ka dibaalsay maxaa keenaya cabdirashiid dibdhacaas maxaa keenaya marka noo sharax dibdhacaas sanadka mar walba maxaa keenayay waxaa keenaya waa abay waqtiina adoo raali waxaa keenaya siyaasiyiintii iyo siyaasadii hadba lug baa fidsamaysa hadba meel baa la iskula dilaamaya maalgoboleedyada dagaalamaya dowladda maalgoboleedyada dagaalamaya xiriirkaa la kala goosanaya ajaanibta dhex boodaysa marka annagu hadda waraaqda aan soo saarnay maalin weyd waxaan ku leenahay haba yaraatee annaga qiyaasteeda suuragal ma ahan labadaas waqtiyo ay walaashay iyo guddigeedu sheegahayaan guddigaas qaranku doorashooyinka sheegayaan annaga markaan fiirinay khubaro badan baana macadka ka tirsan wayna isla hadlaan xaliimo qaarkood waa isla hadlaan mararka qaarkood aniga isakay iga yaro shakidaa laakiin madaxda aniga iskay kalsoon yihiin guddiga karsan tiimka ka tirsan heer daj bay wada hadlaan maalin wada hadlaan anigu kalsooni kuma qabno inay ku sameyn karto teeda kale dadkan bini'aadam weeye bini'aadamka ayagoo iska warqabin fiida ayagoo bini'aadamku iska warqabin bay bias noqon karaan oo qalbigoodu uu ka tanbadin karaa mawduucaanay 5 sano dhex boodayeen aad bay u dhex galeen nal baa u ifahaya ajaanibtii toos bay maalin buuxiliyeen cabdirashiid su'aalan raba inaan meesha kaa weydiiyo su'aalan raba inaan ka weydiiyo adoo sii wato xaliima ayadoo iska warqabin bay bias tahay waqtigeedii maalintu dhimaanayay way tiri doorashan ku dhameynaya guddigoodu annagu waxaan leenahay xaliimo eedaada lahayn sida hadda sheekh shariif u dhahayay madaxweynihii hore eedaada lahayn dhabarka ha u ridanin meeshaan siyaasi dowlad waxaa halkan joogta 3 sano iyo bar dadku fiirinayeen xukunkan inay kusoo noqdaan raba geed dheer iyo geed dheer u fiiriyey baarlamaankiiba hadda kala jabahaya maamul goboleedyadiiba qir iyo qir kala taagan guddigiina meel walba laga soo xiray Puntland iyo Jubbaland gaar ahaan laga soo xiray marka xaliimo waxaa la weydiinayaa Jubbaland iyo Puntland oo aan doorashada ka qayb galin ma farmaajo iyo tiimkiisa xamar doorasho u qabanaysaa walaalay adigu ha eed haysa saarin niman baa siyaasadii isku cakiran xalku wuxuu ku jira nimankaas in la isku keeno waad mahadsantahay shaydaanka iska naara marka waa daruuri waa maya su'aalan raba inaan ku weydiiyo meeshaas inaan su'aal kaa weydiiyaan rabaa xaliimo waxay tiri anigu farsamaan u taagnahay dastuuriyaan ahay baarlamaanka li mariyey email mariyey laakiin farsamaan u taaganahay oo waxaan eegayaa war sanduuqan xaggee la dhigayaa inta lama dhigi karaa siyaasad shaqo kuma lihi yay tahay siyaasadda isfaham inuu dhex dhigo tusaale waxaad u soo qaadatay inaan garowe sanduuq la geyn karin iyadoo siciidani uu maqan yahay kismaayaad u soo qaadatay yay tahay garowe iyo kismaayiya muqdisho inuu isu keeno ayadoo xaliimo iyo guddigan sharafta leh waa inay ku celceliyaan waxaasaan qabanay waxaasaan naga dhiman waxaasna u baahannahay waa inay maxaa la yiraahdaa siyaasadaha waxyaabo 5 qodob bay sheegeen dhaqaalana waxay dhaheen haddaan helaan qaban karnaa haddii siyaasadda laga heshiiyaan qaban karnaa haddii isafgarad jiraan qaban karnaa haddii amniga la xasiliyaan qaban karnaa haddii waxaasay ku hayaan haddiidaas markaysa hoos u dhihin haddiidaas waa inay kor u dhahaan sababtoo ah waxa kaloo ay sheegayaan u diyaarsan ama waxa kaloo ay heli karaan haddii siyaasiyiintu is afgaran waayaan xabad kama hirgelayso marka dadkan ayaysa hoosaasinin
teeda kale doorashadii tan ku horreysay xaliimo iyadaa maamuleysay oo aadka looga qayliyey tii hore tan ku horreysay lug bay ku lahayd walaashay tan marka inay kusoo baxdaan rabnaa gabdhuhu ay bila sharaf ku qaataan baan rabnaa marka nimanka siyaasadda waad mahadsanta halkaan noogu hay cabdirashiid waa kugu soo noqon doonaa waqtigan beeqaaminaynaa halka aad weli nagala socotaan waa b b c barnaamijkeenii dooda jimcaha xaliimaan rabaa inaan ku noqdo xaliima 3 shay baa laga dhawaajiyey sheekh shariifna waad maqlaysay amnigaa laga hadlay heshiis baa laga hadlay dhaqaala laga hadlay dowladda federaalka guddi doorashaa tahay waan ognahay dhax baad u tahay xubnaha siyaasadda ma u sheegtay caqabadahan jiro ee heshiis la'aanta inay adiga ku curyaaminayaan adiga iyo tiimkaaga ay curyaaminayaan horta catoosho cabdirashiid waa mahadsan yahay laakiin cabdirashiid waxaan ka xumahay inuu mar kasta kusoo celceliyo 9 su'aalood oo 2017 maalintii jawaari uu kusoo noqday uuna weydiiyey inay marka dawladda ka horreysay inay tahaanba u malaynaya intaas curyaan ma aanaan ahaynoo wax badanaan ka qabanay su-aalahan nala weydiiyey dastuurkaa ka mid ahaa waxaan caddaynay dastuurka ku-meelgaarnimadiisa in lagu shaqayn karo oo doorashada lagu qaban karo si aanaan u sheeginoo hadda jawaab iiga dhiga waxaa la qabanaya yiri anigu kuma dhihin dastuurka waxaa la sameynaa 2018 ilaahay ha u naxariistee wasaaradda cadaaladda wasiirkeedii iyo shaqaalaheedii iyo aa ka shaqaynayo oo arrintaas yiri xaliimo ma dhihin horta hore dastuurka waqti ma hayno xaliimo su-aashaan u imaano caqabadahan ku haysta dowladda ma sheegtay annaga waxaa waaye intaas qodobadaas uu sheegay waxaa hadda ka soo haray waa dhaqaalaha iyo afgaradka siyaasadda dhaqaalahana dawladduna waa ballan qaado 7 milyan aa la yidhaha dhiibto international communityna way ballan qaadeen oo doorashada ayagaa ka mas-uula inay qarashkeedii ay bixiyaan laakiin inta kale uu tirinaa asagaa ku raran waddankan lama rabo doorasho in la qabto hadda may adi ma u sheegtay su-aasha iyada cabdirashiid iska dhaaf xaliimo dawladda ma u sheegtay inay heshiis samayso dawladda ma u sheegtay in heshiis la raadiyo hadda intaan hadda ku akrinaya intaan shir tegaynay is-afgarad siyaasadeed annaga intaan baxno dani oo dhahaya muxuu ahay madaxweyne dani kheyr allaha siiye oon heshiis la ahayn heshiis ka ahayn doorashada intaan baxno doorasho inaanaan ka samayn karin waa ognahay carruur maniin waa waxa aan ka shaqayno waxaan u baahannahay meelihii lagu ogeyn lahaa waxaan u baahannahay police stationkii waxaan u baahannahay guddigii isku dhafka ahaa ee doorashooyinka ammaankeeda sugi lahaayaan u baahannahay waxaasoo dhanna waa la sameeyey just keliya inta la heshiiyo in laga shaqeeyo meelaan istaagno iyo xaansho aan qorno iyo shir aan tagnona waa ka sheegnaa annagu siyaasiyiin ma nihin annagu ma nihin dawladda ma u sheegtay su-aasheeda xaliima way caddaan ku yidhi dawladda federaalka madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka war ma u sheegto ma tiri waxaan ma qaban karo baarlamaanka hortiisa haddaan istaagay baarlamaan annaka cidda aan u warbixino oo tooska aan wax u weydiisano waa baarlamaanka haddaan baarlamaanka hortiisa istaagay oo aan ka warbixinay oo aan ka sheegnay yay u dhiman tahay waxaa kaloo jirta tufka siyaasadda loo dhan yahay oo golaha wasiirada ay leedahay oo maalin kasta aan ka sheegi jirno markii shirkaas nalaga waco waxa aan u baahannahay iyo sida aan rabno muxuu ahay in naloo taageero marka waad u gudbisay golaha fulintan baarlamaanka marka laga soo tago xukuumadda maba qarine b b c meeqa goor i wareysato oo aan ka sheegay meeqa raadiyo waad caddaysay xukuumadda iyo tubta diidin yaa la noqonin yaa la fadhinin waa gabagabaynaya xaliima waa mahadsanta shaqana kuma lehen waa u saxaa xaliima waa mahadsanta gabagabada halkaan rabaa xaliima iikaadi halkaan rabaa fartaag 30 sekanaad haysataa halka muxuu yahay meesha la taagan yahay xaggee laga aadi 30 sekan waa mahadsan tahay horta baarlamaankii kusoo celisay guddoomiyaha baarlamaanka may hortagin horta golaha shacabka hortagtay baarlamaanka soomaaliya waa labada aqal mayna hortagin baarlamaanka ee golaha shacabka hortagtay waad mahadsantahay halka muxuu yahay ayagaa ii yeertay intiina waxay ugu yeerteen bay kala hadli lahayd waxaan doorashada qodobka 3 baa qorahaya waa wax la wada ahaa weeye wax qalabka taagna weeye xalku waxa weeye in Soomaaliya saamilayda siyaasadeed ay ka heshiiyaan halka la aadahay iyo doorashada soo noqonaysa xal kale oo ay arkay malaha saamilayda siyaasadeed ii sharax fartaag waa ku sharaxaya waxa weeye dawlad goboleedyada waxa weeye muxuu xisbiyada waxa weeye baarlamaanka waxa weeye xukuumadda waxa weeye madaxweynaha dhammaan in alla inta Soomaaliya oo mataqaana waad mahadsantahay cabdirashiid xaashi 20 sekanaad haysataa maxay kula tahay in arrintan xal loo weeli karo 20 sekan cabdirashiid xaashi ma maqashaa
si fiican 20 second ku soo koob halka muxuu yahay halka aniga waxaan u aragnaa dadka siyaasadda ka shaqeeya inay isku yimaadaan lagana tashado sidii doorasho loo qaban lahaa haddaan la qaban karina sidii dalkan aan khalkhal loo geliyeen taasaan ku talinaynaa waxaan isleenahay waa la gaari karaa haddii la dadaalo waad mahadsantahay Xaliima Yarey ubuucda waxa la isku hayo adaa maanta u ah sal u ah halka muxuu yahay hal daqiiqo halka wuxuu yahay horta hore danley siyaasadeed ma jirto shareholders ma ahan oo siyaasadda lama gadanin dadka waa danaynayaan siyaasadda danley waxa waa daneeyayaasha siyaasadda waaye saamiley ma aha saamileyda siyaasadeed haddaa dhahdid waxa waaye sheer ku leeyahay qofka siyaasadda oo uu gatay marka waa u saxayaa akhristayaasha intaas ha qaataano xalku waxa waaye soomaaliya mida soomaaliya meel wada fadhiisata soomaaliya midooda soomaaliya wax ku heshiisa soomaali oo dadka ay ku jirto gacanta isqabatay iska bixisa ee aan kala cararin intaasaan leeyahay halka intaas waa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yarey gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran ee Soomaaliya senator Cabdullaahi Ismaaciil Fartaag oo ka tirsan aqalka sare xubinna ka ah madasha xisbiyada Cabdirashiid Xaashi falanqeeya arrimaha siyaasadeed ee Soomaaliya ahna madaxa macadka cilmi baarista ee Heritage saddexdiinaba waqtigaad isiiseen waan idinkaga mahadcelinayaa falanqeynta dooda jimcaha ayaan intaasi ku soo qatimaya waxa sidoo kale mahadsan labada barnaamij soo saare Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Cali iyo Kowsar Maxamed Cabdullaahi farsamada Jonathan Mangi ayuu ahaa aniguna waxaan ahay Cabdirasaaq Catoosh doodan qofkii uu seegay dhageysigeeda mar kale waxaad ka dhageysan kartaan boggeena bbcsomali.com tan iyo kulankeena kan xiga nabadgelyo